shirkaas oo ujeedadiisu ku kooban tahay sulxi yacni nabadgelyo amniga xaqiijintiisa iyo markaa turxaan saar waxyaabihii la kala tirsaday lagu turxaan saarayo iyo xaqiijinta amniga ka qaranka iyo kabeelaha yagaba iyo kabeelaha Soomaalilandba wixii kartidaydu ay gaadho waxaanu rajaynaynaa shirka u rajaynaynaa iyo dadka dhammaanteed reer Soomaalilandba tawfiiq waxaanu taaganahay inaanu warbaahinta gelino oo aanu ogeysiino waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa in burca lagu qaban doono insha Allah ta'ala bishan Julaym 20keeda shirweyn shirkaas oo ay ku kulmi doonaan beesha Garxajis iyo beesha Habar Jeclo iyo beelaha Habar Jeclo gogashana ay dhigeen oo leeyihiin beelaha Habar Jeclo waxaanu markaa doonaynaa inaanu baaqan ka jeedino shir gogol la dhigay oo ay dhigeen beelaha Habar Jeclo oo ay iman doonaan insha Allah ta'ala beelaha Garxajis oo ay ku wada hadli doonaan insha Allah ta'ala kagana tashan doonaan nabadgelyada iyo horumarka iyo wixii la mid ah iyo turxaan saar arrinkaasina sida loo sheegay suldaanku uu sheegay waa arrin nabadgelyo waxa weeye waa arrin horumareed waa arrin qaranka iyo wax weeye Soomaaliland ay ku farxi doonaan insha Allah ta'ala taasaanu doonaynaa inay ogaadaan oo ku diyaar garoobaan qolada Garxajis 20ka bisha insha Allah bidmillaahi kariim shirkii aanu galay ayaa waxa ka soo baxay inta la sheegay oo ahayd bishan aynu ku jirno 20keeda in beelweynta Habar Jeclo ay beelaha Garxajis gogol u dhigto magaalada Burco shirkaas oo ah shir nabadgelyo turxaan saar lagu midoobo lagaga shaqaynayo wixii awooda beelaha Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland